Salaamullaahi calaykum asxaabteed waa idin salaamay. Salaan kadib talo maanta maxaa wadaa muddo badan waa kala maqnayn yaa la isku qabanin hergebna waa jiraa soo markay coronana ma ahan hanagu fogaanaya haddii hergeb maqashaan. So maanta asxaabteyda wax kale idinma wado, waxaa idin wadaa bas notice yar oo inta badan aa wada garanaysaan, laakiin haddaan rabo le inaa idin xasuusiyo. Barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay xirfadaha isgaarsiinta ee ugu fudud caalamka kuwa la barto. Xirfadaha isgaarsiinta ee ugu fudud 5 qeybood waaye, maxay ahaydey, laakiin maanta waxaa rabaa inaan halkan maxay ahaydey bal dul istaago 3 ka mid ah, kuwaasoo ah saa taqaanaanbo Englishka wuxuu dhahaa 4 ways to skill English language. waa writing and reading and speaking and listening. So markay tanna wax badan kama duwano. Haddaa maqasho communication ama xiriir ama isgaarsiin ama wada hadal, waxaas haddaa maqasho sideedaba yay ka hoos bixin writing iyo reading iyo maxay ahaydey iyo listening and speaking waa qasab ma karad. Laakiin waxaani markii maxay ahaydey meel walba waxay leedahay qaab loola dhaqmo. Marka maanta waxaan rabaa inaad 3 ka mid ah in la wadaago, 3aas aan dul istaagno oo ka mid ahaa writing communication iyo oral communication iyo non-verbal and visual communication. 3aas ayaan rabaa inaan dul istaago. Horta qodobka wadsaan hore in kugu sheegaba waa writing communication. Maxaa laga wadaa writing communication? Taas waa naqaanaa, qof walbaa yaqaano. Inkastoo writing communication ee Soomaalida ku fiicnayn, haddaa qorto qoraal ku saabsan waxa adiga jeceshahay camal oo kale oo wax dheer aa qorto, waxay ku leeyihin please cod nooga dhig. So marka laakiin ummadda kale ma ahan, qoraalku is very important. Haddana waxaa weeyaan oral communication. Tan Soomaalida waaba waxaan dhihi karaa 99% waa isticmaashaa oral communicationka. 99% Soomaali waa isticmaashaa. Maxaa ka mid 99%ka yani wixii qofkii inuu wax qoray inuu hadla u fudud, taa ku fogaan mayo. Non-verbal and visual communication. So marka laakiin tan waxaa laga yaabaa inaanan ku badnayn because of waxyaabo waxaa jiro dhaqanka anaga laga helo iyo waxyaabo qofka Soomaali ku samaysan ay laga duunka community walba waxay leedahay waxyaabo u gooni ah. Marka tan eye contact ayaa lahaa non-verbal communication iyo waxay kala yihiin visual communication. So marka non-verbal communicationka waxaa ka mid ah tusaale ahaan eye contact ka mid ah. Eye contact maxaa loola jeedaa? It means your body language. Hadii raaciyo body language. Eye contact marka la dhaho it means face to face camal oo kale waay. Weji camal oo kale. Body language maxaa laga wadaa body language? It means qofku asagoonan hadlin, qaylinin, buuqin, fariintiisa uu gudbin karaa, sida dadka dhagoolyaha camal oo kale ma karti, ayagoona hadlin, buuqin, qaylinin fariintooda ay gudbiyaan. Marka taasoo kale ka mid ah body language ka mid ah. Qofkani marka aragto intuusan kula hadlin waa dareemaysa inuu xanaaqsan, inuu faraxsan yahay iyo in liin jeelka loo soo siiyey in kale. Ta kale waxaa weeyaan visual communication. Tan waxaa weeyaan waxaa ka mid ah calaamadaha signs-ka ka mid ah, film baa ka mid ah, and graphic design baa ka mid ah. Graphic design tusaale ahaan markaad fiiriso
filimka markaad daawanayso ama hadda muuqaalka markaad daawanayso waa communication, laakiin ani adi ma wada xiriireyno ya. laakiin waxaad daawanayso waxaa weeyaan filim camal oo kale. tusaale haddaad sawir aragto, sawirkaas waxa loola jeedo stand a meaning, ma karata macno u taagan yahay, is no meaning, ma karata adduunka by no meaning wax laa ma jirto, ma karata ya. graphic design sidoo kale, filimkana sidoo kale markii la matalayo dan baa laga wadaa. soo markee maxay ahaday inta kale waxaa waaye laba kalaa noo hartay, labadaasna insha allah mar kale kusoo darayaa. waa active listening iyo contextual communication. laba saa kusoo darayaa. shantaas waa shanta shay ee ugu fudud ee la baran kara caalamka marka la dhaho communicationka. ilaa wax wali waxbaa ka fudud maho, intaana waa inta ugu fudud. tusaale ahaan haddaad soomaaliya waxaa weeyaan qoraalka ya, iyo oral afka oo laga hadlo, iyo in body language-ka isticmaasho, iyo eye contact-ga iyo face to face, yacni inaa qofkan aa la kulanto camal oo kale, iyo qofka inaad dhegeysatid wuxuu sheegay iyo wuxuu rabo inuu kuu sheego, ama inuu kaa dhaadhacsiyo inaad dhegeysatid ya, oo dhegeysta wanaagsan aad noqotid, iyo contextual communication. marka taasna ayadana waa ka saali doonaa, laakiin tan inta badan ma u badnin. waxa u badan businessman u badan, contextual communication ka u badan, sida yani bangiyada ama kuwaan maxay ahayd insurance-yaasha u badan inta badan. marka muuqaalka intaas ku egyahay, laakiin waxaana idiin sheegaya ma ahan aqoon idin dheerahay, laakiin wax aad taqaanid oo isxasuusin ah ya. soo markee inta haddaad barato wax badanay kaa caawinaysaa. salaama min kulli afa waa in salaamaya ya. see you kulan dambe, okay, mac salaamo.